asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada kanaalka islaam salaam. Sidaynu wada ogsoonnahay, caruurta waa arsaaq alle u bixiyo. wax alle bixiyo waxyaabaha ugu qaalisan. Caruurta waa quruxda qoyska, waa ubaxa wadanka. Diinta islaamku waxayna faraysaa in caruurta tarbiyadooda iyo mas-uuliyadooda la qaado, qof walbana la weydiin doono maalinka aakhiro mas-uuliyadiisa. Haddaba korniinka caruurta ma aha kaliya in ilmaha la siiyo cuntooyin macmacaan si loo qurxiyo muuqaalkiisa sare. Haddaynu caalamka aynu ku noolnahay eegno, waxaa la gaadhay horumar. waxaa la sameeyey daraasado ku saabsan caruurta. waxaa la ogaaday xanuuno badan oo ku dhaca caruurta. taasi waxay qasabtay in ay soo baxaan dhakhaatiir u gaar ah caruurta, kuwaas oo ka daaweeya dhinac kasta, xagga maskaxda ama maskaxiyan psychological treatments ama jismiyanba. Wadamada horumaray waxay siiyaan caruurta mudnaan gooni ah, oo ilaa waalidiinta loo sameeyo siminaaro la wacyigeliyo ilmaha yar ee ku nool wadamadaasi horumaray. waxaa loo koriyaa maskaxdiisa si leeg sida loo koriyo jidhkiisa, si jiilka soo socda u noqdo mid ka foyow kuwa hadda jooga. taasi micnaheeda waxa weeye waxay aad ay diiradda u saaraan in ilmaha la kobciyo garaadkiisa. haddaba haddaynu nahay Soomaali, wax badan kama fahansanin mowduuca caruurta, oo intooda badan waalidka Soomaaliga, gaar ahaan aabbayaasha, waxay caruurta ku barbaariyaan qalafsanaan, caburin, cadaadis iyo sitaan. Aabbayaasha Soomaalida waxay aaminsan yihiin ilmaha oo la isku adkeeyo in uu sababo tarbiyad wacan, laakiin waa bilcagsi. marka waalidiintu ay saaraan cadaadis, caburin, culays iyo sitaan caruurtooda, waxay keenaysaa in caruurta intooda badan marka ay koraan ay ka dhacaan mustaqbalka, oo ay bilaabaan daroogooyin, falal xunxun, kufsi, ugu dambeyn xabsi. waxaa arrinkaas sababana waa la tacaamulka lala tacaamulay marka ay yaraayeen, oo aad u xumaa oo aad u qalafsanaa. korniinka caruurta ama la tacaamulka oo la wanaajiyo waxay keentaa helitaanka jiil maskax fayow oo caafimaad iyo horumar ku hana qaada. waalidka caruurta dhalayna wuxuu ka dhaxlaa caruur uu alle siiyey caqli iyo garaad badan, kuwaasoo hela maskax fiican iyo faridnimo. haddaba culimmada cilmi nafsiga amba culimmada psychologiga waxay ku kala aragti duwan yihiin qaabka korniinka caruurta iyo sida loola tacaamulo, laakiin intooda badan waxay isku waafaqsan yihiin caruurta inay u baahan tahay naxariis siyaado ah si ay u noqdaan kuwo awood u leh inay soo bandhigaan aragtidooda amba rabitaankooda. haddaba maxaad ka og tahay qaabka aad caruurtaada ugu ridi kartid xanuunada dhinaca dhimirka? warwarka xaddhaafka ahi waxa uu ka mid yahay xanuunada dhimirka ku dhaca, waxaana keena xanaaqa joogtada ah, sida qofka oo niyad jaba ama inuu dareemo inuu wax qiimo lahayn, ama in ilmaha yar uu dareemo rajo la-aan. waxyaabahaasi waxay keeni karaan in uu qofkaasi isdilo. qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ayaa ilmahooga cadaadis ku saara dhinaca waxbarashada ah. waxay mar walba doonayaan waalidiintaasi in ay galaan kaalmaha sare, taas oo dhakhaatiirtu leedahay waxay horseedi kartaa in ay qaadaan caruurtooda warwar badan oo keeni kara xaalad xanuun dhimir ah. kaliya maaha in waalidiintu saaraan caruurta cadaadis waxbarasho, waxa kale oo keena in ilmaha yar hortiisa isku caayaan hooyadii iyo aabihii, ama aabihii uu ilmaha hortiisa ku garaaco hooyadii.
Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay cudurrada dhimirka ayaa sheegay waqti uu ka hadlayay BBC-da. Waxa uu yidhi digtoorku Soomaalida way dayacaan carruurta. Waxaa jira waalid aan kala jeclayn ilmihiisa inuu maydhay, inuu cunay. Carruurta oo la dayaco inay keento mustaqbal xumo. Waxa uu sii raaciyay waxyaabaha keena xanuunkan in waalidka ilmaha ku dhahaan hadallo qalafsan sida hadal dambe ha igu soo celin iyo wixii la halmaala. Haddaba maxaa looga baahan yahay waalidka? Qodobka koowaad, waalidka waxaa looga baahan yahay ilmaha amba carruurtiisa la jecel in ay mustaqbalkooda wanaagsanaadaan xagga maskaxiyan iyo xagga jismiyan. Qodobka koowaad, ha u goodin cagajuglaynta iyo cabsigelinta joogtada ka daa si aanu u noqonin ilmahaaga yari mid aan jeclaysan codkaaga, araggaagana ku farxin. Qodobka labaad, ha cadaadin hana caburin aragtidiisa, waayo waxa uu noqonayaa mid ku weynaada isagoo aan awoodin inuu soo bandhigo aragtidiisa. Fadlan ilmahaaga ha ka luminin kalsoonidiisa. Qodobka saddexaad, ha u samayn ballanqaadyo been ah. Hana noqon mid ay awlaadiisu ka barato beenta. Sidaasi darteed isku day ilmahaaga inaad dareensiiso inaad neceb tahay beenta, dembina ay tahay sheegitaanka beenta. Taasi waxay keenaysaa inuu ilmahaaga yari ku dadaalo ka fogaanshaha waxaad neceb tahay oo dhan. U ogolow inuu ilmahaaga yari kuu sheekeeyo micnaha fursad sii dhegaysigiisa. Ha dareensiin sheekadiisu inay ku caajis gelinayso. Taasi waxay sare u qaadaysaa kalsoonida ilmahaaga si uu u noqdo mid kalsoonidiisu aad u buuxdo. La qosol, u sheeg inaad jeceshahay. Waxaad ku tiraahdaa aabe waan ku jecelahay, waxaad tahay wiilkayga, waxaad tahay gabadhayda. Ku qabo laabtaada oo qalbigiisa ku beer jacaylka waalidnimo. Ogowse haddii aanad ilmahaaga dhunkanin inaad ku sifaysan tahay qof arraxan daran. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhukaday Xasan bin Cali. Waxaa agtiisa joogay ninkii wuxuu yidhi waxaan dhalay 10 carruur ah, mid ka midana maan dhukan. Nabi Maxamed intuu eegay ayuu yidhi man laa yarxam laa yurxam. Fadlan ilmahaaga u naxariiso markuu yar yahay si uu kugu naxariisto marka aad weynaatid ood jilicdid. Qodobka shanaad, la ciyaar ciyaaraha uu ilmahaagu jecel yahay. Hana ka xishoon inaad ilmahaaga maaweliso. Kula ciyaar deerka guriga, ku xidh hal xidhaale si maskaxda ilmahaagu u noqoto mid awood u leh inay fakarto oo shaqayso. Hadduu ku guulaysto jawaabta si abaalmarin, taasi waxay keenaysaa inuu mar kasta ku dhiirado ka shaqaynta maskaxdiisa. Nasiib darrase, aabbayaal fara badan amba hooyaal fara badan amba waalidiin fara badan ayaa kasban weyday quluubta carruurtooda. Qodobka lixaad, ha ku odhan kelmadaha xunxun ee Soomaalida intooda badan isticmaalaan sida doqon, xayawaan, baaster, ay, uf. Waxaa la ogaaday daraasad la sameeyey in cayda amba ficilka ay kala duwan tahay, kala saameyn fara badan tahay. Tusaale ahaan 2 qof ayaad midna cayday midna aflagaatid, amba tusaale ahaan 1 qof ayaad maalina dharbaaxday, maalinkii ku xigana aad cayday ood aflagaadaysay. Waxaa laga yaabaa in 10 sano 5 sano ka bacdi uu ilaawo dharbaaxadii, laakiinse uuna ilaawin caydii aad cayday iyo aflagaadadii. Taasi waxaa lagu ogaaday in saameyn weyn ay maskaxda ibni aadanka ku yeelato cayda qofka la cayo. Ilmahaaga yar markaad ku tilmaanto waxyaabo xunxun, waxaa suuragal ah in uu ku sifoobo hadalladaas oo caqligiisa iyo garaadkiisa dhaawac soo gaadho.
qodobka toddobaad u quudh carruurtaada inaad u iibiso hadiyado oo aad kadis kaga dhigto. Gee carruurtaada meelaha ay waalidiinta kala geeyaan ee lagu ciyaaro, weliba raac adiga oo aabe ah iyo adigoo hooyo ah. Waxa uu dareemaya ilmahaaga farxad iyo jacayl waalidnimo. laakiin waxyaabahan aadka ula yaaba waxaa ka mid a mar aan safar dibadda aan wadamada shisheeye ku tegay ayaa waxaan arkay wadooyinka guryaha hortooda meelo fara badan, meel kasta in la daadiyey qalabkii carruurta ku ciyaari lahayn si ilmo kasta oo gurigooda uga soo baxa uu u helo motivation iyo wax usoo mashquuliyo. innagana nasiib darro taa beddelkeeda carruurteennu baabuurta iyo laamiyada ayay isku dhigayaan oo qaarkood baabuurta ku dabalaabaya. qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan qodobka 8aad oo ah bar diinta islaamka. intuu yar yahay waxaad bartaa ilaahay si uu u noqdo mustaqbalka mid ilaahay ku xidhan. qodobka 9aad maqashii ilmahaaga kelmadaha dhiirigelinta sida aabo fariisanida, wiilkeygii geesi baa tahay, maskax fiican ayuu alle ku siiye ood qur-aanka ku xifdido. kelmadahaasi waxay sare u qaadayaan self confidenceka ilmahaaga yar. carruurtaada ha kala jeclaanin, u cadaalad samee. haddaad carruurtaada midna aad dhukanto, hadiyadu keento, ka kalena aad qadisid, waxa weeyaan waa waxyaabaha naarta lagu galo. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi icdiluu bayna awlaadikum. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay carruurta iyo waalidka inuu mid kasta uu leeyahay xuquuqu gooniya, mid kastana looga baahan yahay inuu xuquuqdiisa ka soo baxo.